nin waxaan ku weydiiyey kalamaan ma dhegaysatay war naga tag oo maxaa dhacay mar dambena su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhegaysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiraahi horta sheekadan kalamaana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino xafaayadda coffee baby coffee baby saanay ilmaha uga qoslisa war salaantiina kama gaaree Soomaaliya dhageysta qowlkii ilaah iyo sharca lagu qaboobaa wax kale la qoraansadaa qurux ma yeeshaan quraafaadka iyo beenta waa lagu khasaaraa khilaafkana quraanka ka digay qoorta noo suran iska quba qarmuunka iyo xiqdiga way su qarisaanay war waa markii ugu horeysay oo 27 sano kadib khilaaf madaxda sare dhaxmara ay kaligood ka heshiiyaan soo laguma dhihin war ninkan qaraxyadii dhacay ayuu kaala hadlay iyo qasaariyi ay geysteen madaxda aqalka sare ayaana ka hadashay haddii tirada la qarin jirayna runta laga sheegay maanta 21 qofood ayaa dhimatay bay yidhaahdeen 60 ka badanna waa dhaawac war hadal wax ma tare wixii dhig loo kaca ma dheheen aryaa wixii dhig loo kaca meeqa sanaan dhehayna haddii la yeelaayo nimankan dhawaaqasan dhig wal dhegaas iyo inay dhaahay wal aragayaan meel dhammaag rahmaanka ilaahayno dhahsiiba goladuna dhibaayaan hadduu jiray cadow qablihi qasaarana geysan jiray waxaa yimid nacab qashiin qof raba dilitaan qof kale qudhiisana raaciyo maatada qarxiyaa bedelay warnimayo qaraxyadii ugu dambeeyey saamayn xanuun badan bay reebeen qaraxii soobe waxaa ku dhintay 3 qof oo waalidiintoodii qaraxii shaam oo ku dhinteen qaraxii naasablood waxaa ku dhintay dictor shiid oo shaam oo ku dhintay wiilkiisii oo dictor kale ah qaraxii u dambeeyey hotel saxafina waxaa ku dhintay ina cabdirashiid ilqayte oo qarax horo isla saxafi ka dhacay aabihii ku dhintay qaraxii shalana waxaa ku dhintay faysal samow oo walaalkii uu ku dhintay qaraxii naasablood walaalkiis kale iyo aabihiina ku dhinteen beledweyne qarax ka dhacay dad badan oo sidaasaa baana jira in yaroo naqaanay baan idiin sheegay ama maqlaye waa dhibane qarax Soomaalida inta badan haddana ma diirayno oo qaar ka haray way iska qosleeyaan aryaadaha qaraxyadaana cudurrada ay reebeen oo cuncunka aanba la yaabana dadkii oo dhan wees hoolayaan ay isxogayaan xagagaf sun miyay ku soo dareen sun ha loo qasee war haadha wuxuu maqabyaalada xitaa qaraxyada abayaashoodii wiilashii isku xogxagee lagu dilaya war almiina haddiiba aana la dhaafeen qaraxyada sawtii la yidhi 4.5 ha laga dhigo deegaamada ha loo qaybiyo qarax lee sheegoosin too waan haysaa too kale alla ma noogu daro aamiin dhah aamiin ani runtaan idiin sheegay balaayo haddiin laga herin sidaan lay u soconaysaa he ogaada arro adi maa ka dambeeyine allahey ka allah warnimayow waxaan idin hayaa halkudhigyadii laga diiwaangeliyey sanadkan dhammaanaya ee iga dhegaysta darbi ayaan ka boodnay siyaasiyiinta xanaaqsan madaxweyne albaabka iga fur dastuurkii dalka waa la xaday 30 milyan haysta oo aan aabbihi ka dhaxlin xan fareesha ayaan idin hayaa 1991 ayaa loo laabanayaa magaalo guuraysa WhatsApp ayaan ku ansixinnay 28 sano kadib waa markii u horeysay dadka bidaata leh waa in naafada qaranka lagu daraa horaa loo soconayaa qaran dumis mooshin musuqmaasuq wasiirro loo eedeeyey xatooyo dadweyne waan qaraabanaynaa sanad gudihiis 4 wasiir oo hal wasaarad isku bedelay kala wareeg madaxtooyadu dadka kama dhaxayso iyo ugu dambeyn waa markii u horeysay ee musharax madaxweyne oo mashaariic xabsi u kacbo war ilaa hadda wax qabadka dawladda noo sheegtay aryaadaha hal waxaan dhageystay gabar xildhibaanad oo ka soo qaxday Jubbaland waxay tiri xildhibaano kalena way iga soo horeeyeen anigana waa lay soo raacdeeyay xilkaygana waa la qaatay waxayna wax ka maqlaysay war gabadha aad sheegaysaa nidaamka iyo kala dambeynta midha ka soo horjeeday macallimiin badan haday u baahay qabtay galmudug ha tagto warnimaha gudoomiyaha gobolka Nugaal waxa uu duqa magaalada Garowe ku eedeeyay inuu dawladda Soomaaliya xiriir la leeyahay waxaana uu yiri waxaan uga shaki qabnaa inuu yahay nabad iyo nolol waana in xilka laga qaado war waxa la yaaba goormay nabad iyo nolol dambiyada la isku eedeeyo ka mid noqotay wartan la iska eedeeyay tiilifadaay meetan boorka number 4 ida tunka gorongu walaa u naxariistay wariyaha Awil Daahir shalay Soomaalida qarax ku dhimatay ka mid ka ahaa madaxweynayaashii Soomaaliya soo maray inta ka nool tacsibay u direen Ali Maadi Maxamed Abdi Qaasim Salaad Sheekh Shariif Sheekh Ahmed Xasan Sheekh Maxamuud Maxaa Abdullaah Farmaajo shantaasi
weliba tacsibay u direen low war kalimiyuu falayaniyow war muuse bixiba mala sheegay arshib nagadhe ma asagaa madaxweyne hirshabeellaba sheegay war mustafa xagjarba ma sheegin lug ilama ilaahaysiinka gooyey masiin ara lafta garaan oo madawiinimadiis fareesh abba ino taasiyey makadarnerese wala wadalan yaw war madaxweyne xaafba ma adnaan ku darin bowe cabdiweli gaasba maydinkaa tacsida dadka diray wuu ku jiray nagu yidhi war waad waalantiin madaxweyne asiis sheekh axmed duxul midinkaa ugu soo daray yaa madaxweyne badanaa waxaa ma maran yihiin alqaaracadka maa laga maray war waa markii u horraysay ee manchester united ay hal kulan 5 gool dhalisa muddo kadib nimanyo war guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhanka amniga mister tuulax wuxuu yidhi alxamdulilah ilaahay qarixii wuu naga badbaadiyey 7 qof baa iiga dhimatay tuulax wuxuu yidhi qaraxu inuu maha yimaado habaxsanaantaan yaa keentay xaal laga rabaa rumow sheegay war barnaamijka isxilqaahana tiyaatarka wasaaradda dastuurka maanta ka shaqaynaysay marka waxaa caddaatay isxilqaanka dhismaha ee dawladda inaan isxilqaanka isqarxiskee shabaabka hor istaagi karin war eleemasaarkasin sheegasaa madawiinaga lafta garan ama le eleemasaarohay waladeena somalilan mustafa cagjar baa aqoonsadaye maxay idinka baahantay isxilqaankiinba ma doonaysee war qarxii shalay ka dhacay daljirka daahsoon inta boor meesha surneed waa baaba'een kii madaxweynaha basa ayaa ka haray waxay caddaynaysaa taas madaxweynuhu inuusan qarax iyo mooshin midna kursigiisa uga kacayn armaye waxay caddaynaysaa madaxweynuhu inuu gees yahay uusan shabaabka kudaynin war taas waxay caddaynaysaa madaxweynaha inas awliya yahay war madawiinaga maraykanku owli iyonay maraykanna ma inaska jira iska gali war adeerow taas waxay caddaynaysaa inuu madaxweynuhu inuu yahay keligii taliya war taasi waxay caddaynaysaa madaxweynuhu inuu bullad buruuf ku dhex jiro waryaa bulud buruusna laguma badbaado ma laguma badlo celis arya madaxweynaha keligii taliya xaad u leedahay iga tag dhigaha dhunxiye